sharaf weyn bay noo tahay waana wax lagu farxo partnership-ka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo European Union-ka oo ku saabsan dhanka amniga dhinacyo badan ayaa partnership naga dhaxeeya laakiin hadda dhanka amniga iyo difaaca iyo caawimaadda garab istaaga Soomaaliya ay ku garab istaageen in ay argagixisada iyo kooxaha kale qalqalgelinaya intaba sidii looga qaalib noqon lahaa Soomaaliya inuu noqon lahayd waddan nabad ah oo adduunka contribution ku leh sida ugu lahaan jiray maantay waxay muujinaysaa xirada dhaga badan oo aan shooting range-gii laga furay meesha bakhaarka hubka lagu xareeyo iyo qalabkan kale baabuurta oo la wareejiyay intuba waxay contribution fiican u noqon doonaan dadaalka aan ugu jirno Soomaaliya xasiloon dadkeedu nabad ku nool yihiin dhulkeeda barwaaqadana ay ka faa'iideystaan 69 milyan oo SNA 1 ilaa iyo 4 la geliyay SNA 3 runtii wax sahlan maahan wayna muuqataa maanta raadkeedii ciidankeenuna waxaa loo awood geliyay oo European Union-ka uga mahadcelinayna inay awood u siiyeen in ciidankeenu ay awood u yeeshaan ee amniga dalka kula wareegi doonaan insha Allah waxaan kaloo ka mahadcelinayaa SJ GAP iyo EUTM military training oo iyaguna shaqo fiican haya oo European Union-ku wakiilka ah dhammaan arrimahaas oo dhami dowladano magaca dowladda Soomaaliya ku hadlaya ambassadorka iyo delegation-ka nooga yimid Brussels inta waa uga mahadcelinaynaa waxaan leenahay wada fiican baan ku soconnaa haddii la yiraahdo contribution-ka European Union-ku ay ku leeyihiin security-gana waa muuqataa waxaana rabnaa Soomaaliya ciidankeedii furmada kala duwan ayay cadawga argagixisada kula dirirayaan guushina way dhowdahay halkaas laga sii wado aad iyo aad baan u mahadsantihiin waxaana leenahay mahad ballaaran baan idin soo jeedinaynaa waa mahadsantihiin